furdhagahaaga gabadhaada kuwaa isceebaynaya labadiina dhagaysta. guryaha wixii ka dhex dhaca bannaanka lama geeyo. guryaha meedhiyaha waa laga fogeeyaa. guryaha cawraa ku jirta, xaasas baa jooga, xoolaa yaalla, awlaad, tarbiyo, diin iyo iimaan iyo xishood. guryaha albaabada u xira yaan bannaanka la geynin. falaa tafcaluu fa innamaa mathalu daalik. furdhagahaaga gabadhaada habeenkii soo fariisanaysa halkaa labadiina intay isguursadeen bil kadibna intay isfureen midba midda kale sheegaya wixii uu sameeyey. kuwaa isceebaynaya ilaahay xishoodkii ka qaaday, iimaan darridu ku dhacday, kuwiina aan ilaahay imaalin qiyaama ka baqaynin. dhagaysta xabiibkaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam falaa tafcaluu. war sidaa ha yeelin. joog gabar yahay afkaaga xiro, qari cawrada. wiilkaaga afkaaga xir. meedhiyaha jinni insiya ku jira, ha ceebaynin walaashaa. war ha isceebaynina. eeg xabiibku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam kuwa sirta gudaha reerka ka warrama oo bannaanka geeya, albaabadooda shayaadiinta u ballaqaa waxay la mid yihiin shaydaan la kulmay shayddaanadiisa. insaan maaha kuwan. min ashari الnaasi way cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama. ma aha bini aadam, bal xoolaha way ka sii liitaan. waxay la mid yihiin shaydaan la kulmay shayddaanadiisii jidka dhexdiisa oo intuu ka xaajo gutay markaa kadib isaga tegay oo ka gadoomay. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.